ismaqal iyo daawasho wanaagsan meel walba aad joogtid ku soo dhawo wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka waa 8 bishii 6 sanadka 2020 qodobada wararka aad xilligan ku daawan doonto waxaa ka mid noqon doona madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo ka hadla soo saarista shidaalka iyo kheyraadka kale ee dhex eegaaga gudaha dalkeena xisbiyada mucaaradka oo kulamo kala duwan la yeeshay gudoomiyaha baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya maxay ahayd halka qodob oo Sheekh Shariif Sheekh Axmed Xasan Sheekh Maxamuud iyo gudoomiye Mursal ay isku fahmeen qaramada midoobay oo si weyn u taageertay una soo dhaweysay tallaabo ay qaaday dawladda federaalka ee Soomaaliya hal arrin ka codsatay madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Filish oo si cad u weeraray mas'uuliyiinta dawladda sheegayna arrin aysan ka filaysanin kadib markii uu ka qayb galay dibadbixi shalay ka dhacay magaalada Muqdisho iyo saddex dal oo Carbeed oo aqbalay qorshaha Israa'iil ugu darsanaysa daanta galbeed qodobadaas iyo qodobo kale oo dhowr ah ayaan idinkugu soo gudbin doonaa warkeena xilligan mar kale ku soo dhawow haddii ay tahay markii kugu horeysay ka mid noqo saaxiibada hela macluumaadyadan halkan ku soo gudbino kadib aragtidaada qodobka ku soo jeeta lana wadaag saaxiibadaada mahadsanid mar kale ku soo dhawow iminkana warkii oo faahfaahsan marka hore waxaan ku hormari doonaa kulanka xisbiyada iyo gudoomiyaha baarlamaanka dhex maray kulan saacada qaatay una dhaxeeyay gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo madaxweynayaashii hore ee dalka Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed isla markaana looga hadlayay arrimo dhowr ah ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya mas'uuliyiintan ayaa isku soo hadal qaaday arrimo ay ka mid yihiin ammaanka dalka doorashooyinka Soomaaliya khilaafka siyaasadeed ee u dhaxeeya dawladda federaalka ee Soomaaliya dawlad goboleedyada iyo xisbiyada dalka iyo arrimaha cudurka COVID-19 inta badan qodobada la isku afgartay ayaa la sheegay inay qayb ka ahaayeen ammaanka iyo sidoo kale arrimaha la xiriira khilaafaadka siyaasadeed ee ka taagan gudaha dalka Soomaaliya marka laga yimaado ama laga reebo arrimaha doorashooyinka oo wali aan la cadeynin sida ay u dhici doonto Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud ayaa gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan u sheegay in qorshaha doorashada qof iyo codkii ay tahay riyo aanay suurtagelaynin 2021 inay ka dhacdo gudaha dalka Soomaaliya loona baahan yahay qorshe kale oo ay la timaado dawladda federaalka ee Soomaaliya sida xogta iyo macluumaadkan ku helayno mas'uuliyiintani ka socda madasha xisbiyada qaran ayaa sheegay inay waajib ay tahay in dalka ay ka dhacdo doorasho waqtigeeda aanan kadib marin hufan oo xor ah haddii ay dhici weysana ay sheegeen in dalka uu lugaha u la geli karaya dhibaatooyin kala duwan taasi oo ka imaan karaysa muddo kororsi haddii ay isku dayaan mas'uuliyiinta iminka xilka haya sida xogta iyo macluumaadka aan ku helayno sidoo kale mas'uuliyiintan ayaa waxay dalbadeen in laga qayb geliyo saamileyda siyaasadda qorshaha looga go'aan gaarayo nooca doorasho ee dalka ka dhacaysa madasha xisbiyada qaran ayaa la filayaa inay soo saareen war-saxaafadeed ee kaga hadlayaan qodobadii ay kala hadleen gudoomiyaha golaha shacabka ee Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan waxaase ka horeeya kulan kale oo ay yeelan doonaan dhammaan mas'uuliyiinta madasha xisbiyada qaranka isla markaana xisbiyada loo gudbin doono go'aankii ay ka soo heleen ama ay kala kulmeen gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan Maxamed Mursal ayaa si dhow wuxuu saaxiibo u leeyahay mas'uuliyiinta ugu sareysa dawladda federaalka ee Soomaaliya inkastoo mar walba la sheegayo in ay kulamada kala duwan ee mas'uuliyiinta ay yeelanayaan ay inta badan ku taxalluqi karaan arrimaha doorashooyinka dalka arrinta waxay ku soo aadaysaa iyada oo gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan dhawaan uu shaaca u ka qaaday in doorashada waqtigeeda ay ka dhacayso gudaha dalka Soomaaliya dawladda federaalka ee Soomaaliya mas'uuliyiinta ugu sareysa ayaa ku adkeysanaya in doorasho waqtigeeda ah ay ka dhici doonto gudaha dalka Soomaaliya inkastoo shaki badan laga muujinayo in doorasho qof iyo cad ay ka dhici karto gudaha dalka Soomaaliya 2021 markana madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa isaga oo ka qayb galaya hadalna ka jeediya kulankii kalfadhiga toddobaad ee golaha shacabka ayaa arrimo dhowr ah wuxuu kaga hadlay kulankaasi inkastoo khudbadiisa qaybaha hore ee mas'uuliyiinta ama xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka isku dayeen in ay arbushaad ay ka sameeyaan haddana sida dastuurka uu dhigayo madaxweynaha ayaa waxa ay tahay in uu furo kalfadhiga baarlamaanka isla markaana khudbad uu ka jeediyo khudbadiisa oo dhinacyo badan taabanaysa ayaa qaybaha dhexe waxa uu kaga hadlay arrimaha kheyraadka dalka Soomaaliya iyo soo saaristiisa madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa waxa uu sheegay in dawladdiisa ay door weyn ay ka ciyaareyso soo saarista kheyraadka kala duwan ee dalka Soomaaliya oo ay ka mid yihiin shidaalka iyo kheyraadka kale ee dalka dhex yaala waxa kale oo uu sheegay in ummadda Soomaaliyeed ay yihiin dad qani ah isla markaana aysan jirin sabab keeni karaysa in baahi ay ku noolaadaan maadaama ay yihiin dad haysta dhul barwaaqo ah oo Ilaahay ugu deeqay
dhinaca kale madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa waxa uu soo hadal qaaday guulihii ugu dambeeyey ciidamada xoogga dalka ay gaareen isagoo ammaan huwiya dhammaan dhallinyarada ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ka tirsan. Dowladda madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa waxay ka mid tahay dowladihii dalka soo maray kuwoodii ugu badnaa ee dhalinyaro ahaan u qora ciidamada xoogga dalka. markana haddii aan eegno qaramada midoobay ayaa waxay soo dhaweysay tallaab ee qaaday dowladda federaalk ee Soomaaliya. Xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa wuxuu soo dhaweeyay tallaabooyin dhawaan ay qaaday dowladda federaalk ee Soomaaliya oo wax looga qabanayo musuqmaasuqa dalka. golaha wasiirada xukuumadda federaalk ee Soomaaliya ayaa 4tii bishan waxay meel mariyeen istaraatiijiyadda la dagaalanka musuqmaasuqa 2020-2023. Istaraatiijiyadan ayaa waxaa looga gol leeyahay in lagula dagaalamo musuqmaasuqa laguna xoojiyo sumcadda hay'adaha isla markaana lagu dhisi doono halnaan ku saleysan tayo lagu xaqiijinayo daahfurnaanta maamulka maaliyadda dadweynaha sarana loogu qaadayo la xisaabtankooda. Dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa sidoo kale ku dhawaaqday inay diyaar u tahay inay ku biirto isla markaana ay saxiixdo axdiga qaramada midoobay ee la dagaalanka musuqmaasuqa UNCAG la yiraahdo. Waxaan soo dhaweynayaa sida dowladda federaalk ee Soomaaliya uga go'an tahay la dagaalanka musuqmaasuqa isla markaana ay u dhisayso aaminaad lagu qabo hay'adaha dawliga. Sidaasi waxa lagu yiri qoraal ka soo baxay ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Swan. Tallaabooyinkaasi waa kuwa muhiim isla markaana xafiiska qaramada midoobay Soomaaliya wuxuu ku dhiirigelinayaa laamaha dowladda iyo dowlad goboleedyada in ay qaadaan tallaabooyin dheeri ah oo lagu ilaalinayo laguna ballaarinayo daahfurnaanta sumcadda iyo la xisaabtanka maamulka maaliyadda ayuu yiri ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Swan. Swan waxa intaasi uu ku dareeyay in uu filayo in lagu dhawaaqo fulinta ballanqaadyadaasi sidoo hadalka u dhigay. Dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa tallaabooyin waxay u qaaday horumar laga gaarayo maamulka maaliyadda si looga hortago waxyaabaha lagu yeeray musuqmaasuqa. waxaana arrintaasi ay keentay in mas'uuliyiin kala duwan oo xilal kala duwan dalka Soomaaliya ka hayay xabsiga loo dhigo musuqmaasuq dartii. markaana gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir Cumar Maxamuud Maxamed Filish ayaa isaga oo shalay ka qayb galaya dibadbax ballaaran oo ka dhacay magaalada Muqdisho waxa uu ka hadlay arrinta taagan ee maqaamka magaalada Muqdisho. Cumar Filish oo dibadbaxayaasha kula hadlayay magaalada Muqdisho ayaa wuxuu taageeray hadalkii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya kula hadlay isaga oo saaran gaari Cabdibilaa isgoyska kilomitir 4 ee magaalada Muqdisho. waxaana uu sheegay inaysan aqbali doonin in maqaamka magaalada Muqdisho uu ka hooseeyo maamulada kale ee dalka ka jira. sidoo kale waxa intaasi uu ku daray in gobolka Banaadir uusan ka miisaan weyn yahay matalaada 7 xubnood ee laga siiyay golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalk ee Soomaaliya. ugu dambeyntii wuxuu magaalada Muqdisho dadka ku dhaqan ugu baaqay inay istajiyaan isla markaana ay xuquuqdooda ay ku raadsadaan si nabdoon. hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo oo dood ballaaran haatan ay ka taagan tahay maqaamka caasimadda ee magaalada Muqdisho oo la isku mari laayahay xilli ay fooda nagu soo hayso doorashada madaxweynaha iyo tan baarlamaanka oo dhacaysa dhamaadka 2020 ilaa bilowga 2021. ugu dambeyntiina 3 wadan oo Carbeed ayaa lagu waramayaa inay aqbaleen qorshaha Israa'iil ay ugu darsanayso daanta galbeed. wararka ka imaanaya dhulka Falastiiniyiinta ayaana sidaas sheegaya. wargeyska lagu magacaabo Israel Hayrom ayaa waxa uu qoray macluumaad ku aadan in 3 dal oo Carbeed ay aqbaleen qorshaha Israa'iil ay ugu darsanayso dhulka daanta galbeed kaasi oo lagu filayo in lagu dhawaaqo ama lagu dhaqaaqo horaanta bisha soo socota ee Juulaay. wargeyska waxa uu sheegay in dalalkaasi ay kala yihiin Masar, Jordan iyo Sacuudiga kuwaasi oo qorshahani aqbalay si Mareykanka iyo Israa'iil ay gacan uga siiyaan sidii looga hortagi lahaa saameynta Iiraan ee bariga dhexe. ila wareedyo Carbeed ayaa wargeyskaasi Israa'iil Hayom isagoo soo xiganaya waxa uu sheegay in hogaamiyaasha Carbeed ay ka warwalsan yihiin tallaabada u gaarka ah Israa'iil ee gobolka u hirsoodi karaysa khilaafka sidaas daraadeedna ay ku aqbaleen qorshaheeda. 3 dal ayaa ka adkaanshaha Iiraan u arka inay ka muhiimsan tahay qadiyadda Falastiin waana taasi sababta ay ku ogolaadeen qorshaha Israa'iil iyo Mareykanka maadaama labadaasi dal ay ugu baahan yihiin dagaalka Iiraan ayuu yiri ila wareedkan. Riyad al-Maliki oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee Falastiiniyiinta ayaa wuxuu ka falceliyay arrintan ama warbixinta uu daabacay wargeyska waxaana uu sheegay in warbixinta la yaab ay ku noqotay. waxa kale oo Riyad uu sheegay oo intaasi uu ku daray maamulka Falastiiniyiinta isku dayayaan inuu adeegsado bulshada caalamka si cadaadis loo saaray Israa'iil si aysan u dhaqangelin qorshaheeda oo haddii ay samayso dunida u soo jiidaysa mawjado qalalaasa argagixisa iyo xasilooni darro ah sidoo hadalka u dhigay. gudahanna waa naga intaa macluumaadkii kala duwanaa iyo wararkii ugu dambeeyay gudaha Soomaaliya caalamka warkan warka xigantaan ku kulmi doona nabadgelyo.